السلام عليكم. haddaad ku cusubtay kanaalka Nafaqa Channel fadlan taaba calaamadan subscribe-ka halkan. intaas kadib wax kasta oo aanu soo dhignaa si uu kuu soo gaadho taaba calaamada gambaleelka ama challenge-ka halkan. qof kasta marka uu aad u ciyaaro ama juhdi badan bixiyo waxaa jirkiisa ku bata maadada loo yaqaan sodium-ta ama cusbada taasoo cadaadiska dhiigga kicin karta mana u roona caafimaadka wadnaha iyo maskaxda. sidaa awgeed muuska waxaa ka buuxda maadada kale ee loo yaqaan potassium-ta. maadadan potassium-ka waxay hoos u dhigtaa cusbada jirka ee aynu ka soo hadalnay ee loo yaqaan sodium-ta. haddaba maadaama ciyaartoyga ay maskaxdooda aad uga shaqaysiiyaan oo uu ku dhaco waxa loo yaqaano daalka maskaxda, waxaa muuska ku jira borotiin loo yaqaano tryptophan oo maskaxda firfircooni siiya. qofkana marka uu ciyaarta ku laabto waxa uu helayaa foojignaan. intaasna waxaa sii dheer in muuska laga helo tamar iyo awood nafaqo. maadaama uu qofku daalan yahayna wuxuu kaloo yareeyaa dareenka oonka. sidaa daraaddeedna intaas oo laysku daray muusku waa faakahada ugu fiican ee la cuno marka aad hawl culus qabatid sida ciyaaraha banooniga, ciyaaraha tenniska iyo wixii la midka ah. haddaba daawada imikana waxaynu ka hadlaynaa faa'iidooyinka caafimaad ee alla weyne ku abuuray muuska. sidaa daraaddeed muuska waxaa ku jira macdano kala duwan, waxaana ka mid a macdanta potassium-ka iyo weliba vitamin B6 iyo vitamin C iyo macdanta magnesium-ka iyo macdanta koobarka iyo borotiin iyo weliba dufan. dhinaca kalena muuska aan si fiican u bislaan waxaa ku jirta maado loo yaqaano pectin iyo maado kale oo loo yaqaano resistant starch. labadaas maadana waxay hoos u dhigaan sonkorta dhiigga. sidaa awgeed cunnada ka hor ama kadib in la cuno ayaa lagu taliyaa, laakiin dadka macaanka qaba waa inay ka fogaadaan muuska badan, weliba kan si fiican u bislaaday. faa'iidooyinka kale ee muuska waxaa ka mid a muuska waxa uu wanaajiyaa dheefshiidka, waayo waxaa ku badan maadada faybarta taasoo calool fadhiga ka hortagta dheefshiidkana u fiican. geesta kalena muuska waxa uu fiican yahay islamarkaana kor u qaada oo uu hagaajiyaa caafimaadka wadnaha maadaama maadada potassium-ka laga helayo. sidoo kalena muuska waxaa ku jira maadooyinka jidhka sunta ka saara oo weliba xoog badan, kuwaasoo kale ah dopamine iyo weliba catechins, waxayna u fiican yihiin caafimaadka maskaxda iyo beerka. geesta kalena muuska waxa uu qofka dareensiiyaa dhereg. sidaa awgeed dadka cayilan ama buuran oo cunnada cunisteeda aan xakamay karin waxaa lagula taliyaa inay cunaan muus aan si fiican u bislaanin. ugu dambayntiina muuska waa faakiha ama khudrad caafimaad laga helo, laakiin waxay cilmi baadhayaashu isku waafaqsan yihiin in midka aadka u bisil uu ka waxtar yar yahay midka biseelka bilaabi raba ama xoogaa qaydhinka ah. sidaa awgeed haddii aad muuska caafimaad ahaan u cunaysid waa inaad cuntaa muus aan si fiican u bislaanin.